waan salaam asxaabtay saytihiin dabcan halkan waxaan ka hadlaynaa safxadeena aan Twitter marba ogtiin inay sheego dagaal baa halkan socda dabcan yara about xalwada Soomaalida ninkan markan Sacuudiga website uu leeyahay xalayda marka soo dejiyay asoo ka hadlaya xalwada Soomaaliya yaa asal u leh xalwadiga ugu horeeyay adduunka sameeyay الحلوى هذه يا اخوان سمعت انه اول من اخترعها هم اهل الصومال ترى يا اخوان في منها بالسمن وزيت السمسم okay adduunka marka waxaa jira ummado kale oo xalwada samaysata ama xalwa u bixisa ama magac kale for example qaar badan oo reer Cumaana Imaaraatida Bahraynida Yemanta qaarkood ilaa Turkida ilaa Suudada Turkida marka waxay u bixiyaan xalquum laakiin fikradiisa waa sonkortiyo maadadan nashada la yiraahdo cad oo laga sameeyay okay marka ninka marka xulay Soomaalida oo horiso waana runtiis laana fiir cilmi baaris marka sameeysid waxyaalo waxa jirto ku cadaanaysa afcad marka xalwadii xataa way sii farcamtay meel kala la galay marka halkan horta inii shaqeeya number 1 anu halkan waxa qoray xalwada asalka waxa lagu karshaa samin iyo nasha oo baash cad marba ilaa soo magaciisa ii soo qora iyo qasab sukar sonkorta lowsna waa lagu daraa marmarna طبعا saliid macsarada ama saliida sisinta loo yaqaano dadka ugu horeeyo sameeyay waxa weeye طبعا Soomaalida qadiimka ah waxaana laga helaa yani wadarka Soomaalida ama dhulka Soomaaliyeed طبعا لانه alaabaha laga hadlayo dhulka Soomaalida laga helaa marka hadhow shucuubta deriskeena ah baaqatay culture ahaan way iska dhaxleen laakiin qaar baa waxyaalo kale ku daray waa run hadda aragtaan xalwadan Cumaanida uu leeyahay qaar wixii alxalwa Cumaaniya ku leeyihiin qaar badan bay hadda waxay ku daraan hilib bay ku kariyaan malab bay ku daraan sonkorta beddelkiisa yani waxbay ka bedbedeleen laakiin waxa laga hadlayaa basic okay halkan marka waxa yimid Cumaani uu xanaaqay marka wuxuu yiri saddexdan wax asalkeeda waa Cumaan beeniyaan isku sheegin wuxuu ka wada xalwada macawista iyo tan koofiyada okay aan marka in absolute waa u jawaabay لأنه waxyaalo caqli la rabaa طبعا waa u qoray waxa iri macawista waa run horta saddexdan wax ayagu male anana daliilkeeni keenay horta macawista dadka ugu horeeyo lagu sawiray waa bilaad al-pont طبعا waxa arkaa anigu waxyaalahan ka naxa waxa weeye anagu waxana ummadaha culture-kooda dadka kala siiya يعني مثلا Soomaaliga hadda dad aragtid wuxuu ku leeyahay dirica meel kale iga timid guntiinada ummad kale ay siisay xalwada dad kale ay baray bariiska hebel baa ay baray macawista dawladda hebel baa ay bartay asaga marka waa miskiin Soomaalida waxa weeye dadka culture-ka iska tuura culture-kaaga ceerinaysa ummad kale ay tusinaysa waxyaalaha Soomaalida saasiga taasna waxay ku imaanaysaa ku jaahilnimada keenaysa qofkii waxaan ma dabagelin war uma hayo ma garatay ummadaha kale lacag ay ku baxshaan in iyaga la ogaado asal yaale adeed for example Soomaalida tahay bunka leh shaaha caanaha lagu kariyo ma garatay shaaha madow caanaha lagu kariyo waxa tiraahdaa detailska sunnada laga keenay hatta bariiska hilibka isku kariyo ugu horeeyo kariya laakiin maanta ummado badan baa sheegata oo daliil u lahayn oo haysan ba hatta geel iyo arigaas okay halkan waxa ku laabana macawista in Soomaalida tiraahdo daliil maxaa ku daliil waxa ah inuu awowgeen baraxu raagay oo markuu soo dhaweysanay xajab suud naqshiyada ugu qadiimsanaa waa kana wuxuu qabo waa macawis iyo tooreydan xataa carabta anaga naga koobiyay madaan hadda toorey ku faraxsan ninkan ugu horeeyay naqshadahan طبعا cimrigooda ilaa 4000 sano way ka badan tahay muujeeda halkan waxa ku dhigan waxa ku qoran adkham bi'tha fir'auniya lilpont الذهب مقابل الزرافه والنسانيس واشجار البخور ويعني تاريخيا بزنسكي ugu weynaa ee faraacina la gasho dawlad bont weeye nimankan marka waxa weeye waa askartii bont waxaan waa awoyaasha fiir waxay qabaan waa macawisti Soomaali timahana u jeeda keerli waa timaha hadda maanta la isku caayo dadka timaha dheereysta oo timaha sidaas oo kale noqdo hadda maanta cayb Soomaalida ka tahay culture-kii dhan waa laga baxay okay never mind naqshi marka ugu qadiimsan in caraba uu qabo macawis iyo khanjar toorey ma jirto saaxiib Soomaali ahayn tanna waa boqoradeeni ay xadiyo ayadana guntiinada ay qabtay guntiinada ummado kale maanta la siinaya okay waxa iri naqshigana ugu duugsan oo libsiga Soomaaliga inuu asaga asal yahay oo yaasheen iyo boqortooyadii inay qabaan marka adinku shucuub hadaa tiin baa iri waad koobiyeen shucuubta ay qof maanta jooga
oo macawis qaba ama ha noqdo hindi ama asian ama carab ama afrikaan halkan way kobiga asaga ha ii keeno naqsh ka duugsan dadkan kadib baan muxuu ahaa oranayna yes you are the original ama adaan kaasoo guursa kaasoo qaadanaya yani ma ka guuranay miyaa ma garanaya okay xalwada usoo hartay xalwada waxaa iri saaxiib su-aal adunkuma waxaad beerataan qamx waa qamadi qasab sukar sonkor miyaad beerataan ka baxa meesha ugu fiican simsin adduunka dabcan Soomaali way waxa kulma simsin bad haysataan misliida simsintaad haysataan marka waxaa iri taas marka cadeynaysa taas marka laanu xalwada laga hadlayaa originalki adaa haysta wadamada kale kama baxo waxaan okay koofiyada midda ugu khatarsan ugu high quality koofiyad la sameeyo waa midda baraawa waxana meesha ugu fiican koofiyada qaata waa baraawa intaha zaman al-istihbaal yani zamankii dadka beenta loo sheegayay waa laga baxay okay taas marka maxay ku cadeynaysaa taas waxay ku cadeynaysaa Soomaaliya dad tahay waxyaalo badan baad ka maqan adigu as long as aad ka maqneed dadka waa kan hatta kan waan soo galiyay kan waxa weeye buug qadiima weeye wasiirka isticlaamaadka Soomaaliya qoray okay wasiirkaas Allah yarxamuu dhinta umaleynaya kan waxa weeye marka ma aragteen boostada maanta dabcan adigu Soomaaliya tahay boosta ma haysatid boostada marka waxa jirta wax la yiraahdo stamps ma garatay taas marka boostada waa lagu dhajiyaa علشان dawladda ay ka baxday marka waxa jirtay tan marka waxa weeye boosta qadiima cimrigeeda waxa 1959 kii Soomaali ba iska leh boostada marka waxay ku tusaysaa the land of the punch weeye ma garatay geedka lubaanta iyadoo qaadaya ma garatay boostada marka waa boostada jawiga boostada way kala jirtaa midna waa boostada jawiga diyaaradaha marka ala diyaarad lagu qaadayo businesska ama alaabta la geenayo diyaarad lagu qaadayo iyo boostada caadiga ah halkaas marka Soomaali maraysa calaaqadaha taariikhda boostada cimrigiisa more than 66 sano weeye calaaqada taariikhda Soomaaliya Masar bay ku tusaysaa muujeedan meesha la marayo marka taariikhdan barta saaxiibayaal umadahan kale lacaga lagu baxshaa walaalayaal meesha lacag baa lagu baxshaa adiguna waad joogtaa adoo taagan baa taariikh lagu korsamaysanaya marka focus dadka umadaha waa lala doodi karaa is very normal ma garatay anigu naqshiyo ka duugsan kan ma arkin hadda noqoto toorey xataa anigu warqadda ka hor waan soo dhigay tooreyda iyo alaabaha lagu dagaalo qadiimka ah inay faraacinada aan ka soo qaadan jirnay ayaga noo soo diri jiray anagana waxyaalo kale u diri jirnay sida makeup-ka sida dhakuusha xataa anaga umadaha barnay iyo makeup-kan maanta la marsanayo wax gudguduuda مثلا wajiga la marsado qasilka marka wake up to the reality Soomaaliya wad hurudaan inta anagu isku mashquulsanayn culture-ka taariikhda ummad kale isku dhajinaysa ninkan hadda Cumaaniga ah jasiirad Carabta koofiyad kaligiis baa gashta maxaa baray marka nimanka kale ma la gashtaan marka صباح الخير